ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaan ku sugan salaamullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu. salaan kadib waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta aan geesiyaashii guusha u keenay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidanka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan maanta la joogno halkaan. ahmiyad gaar ayay noo leedahay inaan wajiyadiina qiimaha badan aan hor fariisano, aan hor istaagno, aan aragno wax weyn ayay noogu fadhidaa. sidaad la socotiin dalkan taariikho kala duwan ayuu soo maray. taariikhaha uu soo maray waxaa ka mid ah waqti ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu joogay heerka uu Afrika ugu sareeyo. waxaan soo marnay burbur oo aan ciidan jirin, dalka maleeshiyaad iyo qabiilo kaliya ay ka jiraan. waxaan soo marnay heer cadowgu oo gobolada Soomaaliyeed intooda badan uu haysto. maanta waxaan joognaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed awoodda ugu sareysa uu leeyahay, cadowgana intiisa badan gobolada uu ka saaray. taa marka mahaddeed waxaa iskale hoggaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubnahooda kala duwan. xaaladda maanta aan ku suganno halkaan u joogno sidaad la socotiin muddo 15 maalin ayaad waxaad ku soo jirteen howlgal aan noociisa hore loo arag. howlgalkaasi xubnihii ka qayb qaatay qaybta ugu muhiimsan ayaad ahaydeen. annagoo og duruufaha aad shaqadaas u qabateen, annagoo og xaaladaha aad soo marteen, ayaan haddana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin intaad soo gudateen, inta hartayna inaad dhammaystirtaan ayaan idinka rabnaa. waxaa xaqiiqo ah dagaalka lagu jiro in mujaahidiintiisu ay idinka tihiin, in shuhadadiisii ragga idinka baxay ay yihiin, inta idinla dagaalamaysana ay yihiin khawanno dhaalimiin ummadda Soomaaliyeed dhiigooda, maalkooda iyo sharafkooda banaystay ay yihiin, meedadkoodana ay bakti yihiin. xaqiiqo waaye waa mid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loogu dhawaanayo nimankaas dilkooda ciddii Ilaahay ka soo celisa oo soo hanuunta nasiibkooda.